daawad doontaana waxaa ka mid noqon doono baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta u baaqday kooram la'aan baa ka dhan ah dadka ka shaqeeya kicinta colaadaha ee ku sugan dowlad goboleedka Galmudug oo la soo saaray duqa magaalada Muqdisho amray in shirkadaha dhisay wadooyinka roobka ay burburiyeen inay mar kale dib u dhisaan baa ka dhan ah dadka ka shaqeeya horinta colaadaha oo la soo saaray hogaamiyaha ICC Qaatumo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo kulmay dibadana daawadayaal waxaad ku daawan doontaan dawladaha Hindiya iyo Pakistan oo ku heshiiyay xabad joojin degdeg ah qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan ku soo dhawaada warka caalamka ka dhigo wehelkaaga xajka IBS Visa iyo Mastercard wax ka ogow faa'iidada qaadashada wehelkaaga ee IBS Visa iyo Mastercard Visa kaarka iyo Mastercardka bangiga IBS waa mid gabi ahaanba ammaan ah oo la isku halayn karo Visa kaarka iyo Mastercardka bangiga IBS wuxuu haystaa ogolaansho caalami ah kuna fududeynaysa in aad si fudud lacagahaaga u maamulan karto kalena bixi kartid lacagahaaga ATM-yada dalka Sacuudiga sidoo kalena wax uga iibsan kartid suuqyada iyo waliba dukaamada dalkaasi sidoo kalena waxa uu ku fududeynayaa in aad internetka wax uga iibsan kartid sida in aad jaran kartid tigidhada basaska iyo tareenada uma baahnid in aad ka walwashid in aad qaadatid xoogaa lacag cadaan ah iyo in kale waxa uu ku fududeynayaa in aad heli kartid riyaalka Sacuudiga 24 saac habeen iyo maalin waxa diyaar ku ah qaybta adeega macaamiisha oo la soo xiriiri kartid mar kasta iyo meel kasta Visa kaarka iyo Mastercardka bangiga waa mid lagu ilaaliyay 3D Secure waana mid ammaan ah oo la isku halayn karo si aad u hesho IBS Visa iyo Mastercard booqo xarunta kuugu dhow ee IBS Bank isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal hadii aynu ku bilaawno baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu baaqday kooram la'aan sida uu ku warramay wariyaheenna Cabdiyare kulankii xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ay ku lahaayeen xarunta golaha shacabka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa baaqday maanta sida ay sheegeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka warar soo baxaya sheegay in xildhibaanadu ay saameyn ay ku yeesheen biyaha dhexeegaaga wadooyinka ayna sababeen roobabkii xalay ka da'ay caasimadda taas oo keentay in xubnaha baarlamaanka ay ka soo gudbi waayaan wadooyinka xirmay sidoo kale xildhibaano kooban oo la soo warinay tageen kulanka ayaa buuxi waayay kooramkii loogu talagalay taas oo ugu dambeyn sababtay in lagu kala tago kulankii maanta xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ma jirto wax hadal oo ka soo baxay gudoonka baarlamaanka oo la xiriira arrintan waxaase mararka qaar dhaca in kooram la'aan uu noqdo kulanka xildhibaanada baarlamaanka arbacada la soo dhaafay ayaa u dambeysay in kooramkii uu buuxsami waayay kadibna gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe uu soo xiray fadhiga golaha shacabka Soomaaliya sidoo kale Sheekh Aadan Madoobe ayaa fariin culus u diray xildhibaanada iska maqan ee haddana jooga caasimadda waxaan ugu baaqay inay gutaan waajibaadka saaran ee loo igmaday si uu u shaqeeyo baarlamaanka una guto howlaha culus ee horyaala baaqashada kulamadan ayaa imaanaya xilli ay xasaasi ay taagan tahay xiisada ka dhex jirta golaha shacabka taas oo la xiriirta mooshin ay wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo horjeeda gudoonka golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe kuwaas oo horey buuq ugu sameeyay fadhiyada baarlamaanka marka laga soo tagay xiisadan waxaa jira baarlamaanka Soomaaliya wax horyaala shaqooyin adag oo ay ka mid tahay doorashooyinka waxaan laga sugayaa shuruucdii lagu hagilaa kala fadhigii ugu dambeeyay xildhibaanadu ay ku gaari lahaayeen go'aano culus ee la xiriira doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka dalka ayaa wali ana furmin iyadoona sidoo kale xildhibaanadu ay horyaalaan shaqooyin culus hogaamiyaha dowlad goboleedka ICC Qaatumo ayaa maanta waxa uu kulan kula qaaday magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xasan Cuuse ayaa warkan soo koobaya madaxweynaha maamulka ICC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa booqasho rasmi ah ku tagay xarunta madaxtooyada qaranka halkaas uu ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha maamulka ICC Qaatumo ayaa madaxweynaha dalka u warbixiyay xaaladda horumarineed nabadeed iyo dawlad dhis ee maamulka ICC Qaatumo madaxweynaha maamulka ICC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u mahadceliyay casuumaadii shirka golaha wada tashiga qaran iskarab istaaga dhismaha dawladnimada ICC Qaatumo iyo dadaalada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku aadan ilaalinta midnimada dalka kulankan ayaa ku soo aaday xilli uu madaxweynaha maamulka ICC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada caasimadda Muqdisho isla markaana uga qayb galay shirka golaha wada tashiga qaran madaxweynaha maamulka ICC Qaatumo ayaa muddooyinkii u dambeeyay kulamo siyaasadeed waxa uu ka waday magaalada caasimadda Muqdisho halkaas oo kulamo kula qaatay siyaasiyiinta dalka madaxda ugu sarreysa
iyo madax horeetay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya. baaq ka dhan ah dadka ka shaqeeya colaadaha gaar ahaan dadka ku sugan Galmudug ayaa la soo saaray sida uu ku warramay wariyahana Yaasiin Cali Axmed. madax ka tirsan maamulka Galmudug oo qayb ka yihiin dhaqan iyo xubno kale ayaa ku baxay colaad mudooyinkii ugu dambeeyay ka jirtay qaybo ka tirsan gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Oqaashi iyo culimadii halkaas ka hadlay waxay si wadajir ah u sheegeen cid kasta oo ka soo horjeeda nabadda gobolka Mudug si wadajir ah gacanta loogu dhigi doono isla markaana bulshada deegaanka ee wada noolaanshaha rabta lagu horleexin doono. waxay sidoo kale culimadu odayaasha kula balameen in gacan ku dhigle aan la qarin ama qaswade aan lagu dhex eegan bulshada isla markaana ay tahay in inta uusan dhibka bilaaban gacanta lagu soo dhigo bulshada in lagu horleexiyo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu amar degdeg ah ku soo rogay kambaniyashii hore u dhisay wadooyinka ku yaala magaalada Muqdisho oo ay xalay roobka burburiyeen. sidoo kale waxa uu amray in mar kale ay dib u dhisaan. Shukri Baryara Maxamuud ayaa soo koobayso warbixinta warkan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir ayaa sheegay inay wadaan gargaar gaarsiin dad ku waxyeeloobay dhibaatooyinkii ka dhalatay ama dhibaatooyinkii ka dhashay roobkii muddada saacadaha ah ka da'ay magaalada Muqdisho. roobka ayaa sababay in wadooyin badan oo dhawaan la dhisay ay ku burbureen ayuu duqa magaalada Muqdisho waxa uu ku amray shirkadihii hore u dhisay wadooyinkaas in ay dib u dhisaan waliba kuwa ka tayo badan. waxa uu gudoomiyaha xusay in markaasi goordhow ay warbixin ka soo saari doonaan maamulkiisa xaalad degdeg ah ee ka dhalatay roobka ka da'ay caasimadda. waxa uu yiri roobka mihigaanka ah ee xamar iyo agaarkeeda ka da'ay waxaan xaaladaha ka dhashay markaasi ka qaadnay tallaabooyin kasta oo suuragal ah waxaana goordhow soo saari doonaa warbixin la xiriirta saameynta roobka. sidoo kale gargaar degdeg ah ayaan gaarsiin doonaa dadkii ku waxyeeloobay roobka iyo daadadka ka dhashay ayuu yiri. sidoo kale duqa magaalada Muqdisho ayaa intaas ku daray in dowladda hoose ay wali howl adag ay ka wado maareynta saameynta roobka ka dhashay. waxaana uu xusay in maamulkiisa diyaariyay matooro markaasi tuuro biyaha iyo sidoo kale booyado ka dhuuqa meelaha ay biyaha fadhiseen. dhinaca kale tirada dadkii markaasi ku dhintay roobka saacadaha badan ka da'ayay magaalada Muqdisho ayaa korortay waxaana ay gaareen ilaa iyo dhowr qof oo ku dhow tobaneeya. dadka geeriyooda ayaa la sheegay in ay isku jireen kuwa markaasi biyaha qaadeen iyo kuwa guryaha ay ku dumeen intii roobka uu socday. waxaana ugu dambeyn markaasi ama ugu dambeeyay wiil 12 jir ah oo biyaha ay soo qaadeen oo meydkiisa laga helay ama laga soo saaray isgoyska Zoobe oo biyuhu meel markaasi tog ah ay ka sameysteen. degmada Xamar Jajab waxaa laga soo wariyay iyagana dad ku dhintay guryo ku dumay iyo sidoo kale khasaare kale oo dadka shacabka ah soo gaaray. sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayaa dhankiisa war ka soo saaray waxaana uu sheegay in qatar xoogan ay ka dhalatay roobkii ka da'ay Muqdisho. waxay maamulku sheegeen in roobkii ka da'ay 7 ruux ku geeriyoodeen halka ay markaasi ku dumeen 9 guri oo dad shacab ay deganaayeen. 6 wado oo muhiim ahna ay burbureen. qoysaska ay guryaha biyaha ugu galeen isla markaana ka barakacay ayaa lagu sheegay inay gaarayaan ilaa 200 oo qoys balse dadka shacabka ayaa muujinaya in tirada dadka ay intaasi ka badan tahay. waa tahay daawadayaal qodobadii gudaha ee warka caalamka ee warbaahinta Hiiraaweyn ayaa daawataan bal markana dibadda. Hindiya iyo Pakistan ayaa ka wada hadli doona arrimo dhowr ah sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka. waxa uu sidoo kale sheegay in labada dal ay isku raaceen xabad joojin degdeg ah sidoo kalena ay bilaabaan wada hadalka arrimo dhowr ah kuwaas oo lagu qabanayo goob dhexdhexaad ah. qoraal uu soo saaray ayuuna waxa uu ku sheegay inuu bal markaasi bogaadinayo ra'iisul wasaare Modi iyo sidoo kale Shariif. waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweyne ku xigeenka Mareykanka 48 saac la soo dhaafay ay la qaateen saraakiisha Hindiya iyo Pakistan oo ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi iyo sidoo kale Shehbaz Sharif. guud ahaan daawadayaal waxa inta inooga warkii caalamka tan iyo markale sida ay nabadgelyo.